حمام نودي نودي سلمي على سعودي حمام نودي نودي حمام نودي نودي حمام نودي نودي سلمي على سعودي حمام نودي نودي أطفالنا أحبابنا يا نسل خير أمتي يا أمة القرآن هيا نقيم دولة للعدل والحرية يقطنها الإحسان إسلامنا يدعو إلى تسامح ووحدة فكلنا إخوان لا فرق بين أبيض وأسود أحبتي فلنحيا في أمان على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد waxaynu kalimaad kooban insha Allah taala aynu ka oran doonaa cilaaj al-ghuluw fi diin daweynta xadgudubka diinta maadaama laga soo hadlay bilowgii ghuluwga nashadiisii iyo aathartiisii raadku keenayay iyo sababaha keena waxa kamid ah runtii inuu ku dhameystirno hadalka inaynu markaa aynu sheegno asaaliibta fiican ee lagu daweynayo quluwiga ku dhacay in fara badan oo kamid ah ee dadka muslimiinta ah quluwaas dhinacu doonaha noqdo haduu yahay midna xagga aqeedada ha noqdo amba dhan kale ha noqdo jaanibku doonaha noqdo dhinacu doonaha noqdo waxaan runtii ku soo khulaasaynaa markaas inuu sheegaynaa dawada xadgudubka diinta oo saddex jaha aynu ka eegayno amba saddex dhinac aynu ka eegayno mid waxa weeye cilaaj amba daweyn xagga aqeedada ah midna waxa weeyaan mid xagga ah cilmiga amba tacliimta iyo waxbarashada midna waxa weeyaan cilaaj tarbawiya amba ijtimaaciya xagga waxaynu eegaynaa xagga caqadiyan in marka hore loo daweeyo quluwigan iyo asbaabta keentayba ta koobaad waa atamasuk bilkitaabi wa sunna in runtii qofku uu qabsado kitaabka iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam haday tahay amal iyo haday tahay hadal iyo haday tahay i'tiqaad intaba inuu kitaabka iyo sunnada ma garanaysa uu ku dhigo qofku runtii inaanu hawadiisa aan raacin ee diintiisa uu kaga sugnaado ala ilmin wa basira yaqiin uu kaga sugnaado oo uu barto markaa inuu runtii uu barto qawaacida shariicada islaamka ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka waxa uu ka dhigay waa kitaab al-hidaayah waa kitaabkii hanuuninayay basharka waa kitaabkii tusaayay basharka dariiqada markaa toosan ee xaq ah waxay ku soo aroortay nusuusta runtii iyadoo tusinaysa inay waajib tahay kitaabka ilaahay subhanahu wa ta'ala in lagu dhigo oo ilaahay iyo rasuulkiisa sallallahu alayhi wasallam marka la adeeco Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wa adii'u allaha wa adii'u ar-rasuul wahdaru ilaahay iyo rasuulkiisa adeeca oo iska ilaaliya ina khilaaftaan kitaabka iyo sunnada Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay fa inta wallaytum fa'lamu annama ala rasulina al-balaghul mubin hadii aad ka jeesataan daacada ilaahay iyo ta rasuulka waxa ogaateen rasuulka iyaga inay saaran tahay in dadka gaarsiiyo al-balaghul mubin oo dadka uu gaarsiiyo oo isaga wax kale aan lagu lahayn ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay ayyuha alladina aamanu adii'u allaha wa adii'u ar-rasul wa ulil amri minkum ko ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyo ilaahay iyo rasuulkiisa adeeca iyo kuwa ma garanaysa culimadiina adeeca ulil amri waa laba qolo weeyaan waa nimanka xukaamta talada haya xukaamta dadka muslimiinta oo talinaya iyo dadka culimada ah labadaba waa la adeecaya inta aanay markaa aan ku amrin macsi ilaahay subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay hadaa shay isku qabataan farudduhu ila Allah wa rasuul kitaabka iyo sunnada markaa u celiya markaa waxa uu runtii mujaahid mujabir rahimahullah ta'ala wa min at-tabi'in weeyaan iyo runtii mid wax ka badan oo salafka laga soo naqlinaya in leeyihiin markaa an yuradda at-tanazu' fi dalika ila al-kitabi wa sunnah
شيء كستو الله يسكو قبطه وإن لو عليه كتابك إلهي إيه سنة رسولك صلى الله عليه وسلم أي شيء الله يسكو خلافه وإن كتابك إيه سنة لو عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحوليه هي إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا به أبدا إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا النبي صلى الله عليه وسلم وحوليه وحن إذن كتغي شيء هذي قبصتان أو أيسيو كدكتان وليين أيضا لمهين أو محيا كتاب الله وسنتي سنة كتابك إلهي سبحانه وتعالى هي سنة رسولك صلى الله عليه وسلم حديث كم توحى عصر كم صار وحاكم بيهقي في السنن الكبرى حاكم نوح أوليه وصحيح مركا وصحيح مركا رنتي قفكو إنه كود قمقران ساو نحن حيستو السنة وقبصده هي كتابك هي كفي عن إنه كود دال مركا بدعده أو دال بدن بدعه وكوب حيا مركا علاج كوباد رنتي وحويان قفكو إنه كتابك إلهي هي سنة رسولك صلى الله عليه وسلم مركا وكود كتابك إلهي هي سنة أول لجودة waxay runtii ay ummadda ay u xaqiijinaysaa inay ka badbaado dhammaan wax alli min kulli sharrin wa inhiraafin leexsanaan kasta iyo shar kasta qofku wuxuu kaga badbaadaya atamassuku bil kitaabi wa sunnah inuu kitaabka iyo sunnada ma garanaysaa uu ku dhigo maxaa yeelay sharka oo dhammi wuxuu ka soo baxaya iyo dhibaato dhammi ay ka imanaysaa al-i'raad an diin Ilaahi subhanahu wa ta'ala wa sharci qofku in Ilaahi subhanahu wa ta'ala diintiisa iyo sharcigiisa uu markaa ka jeesto qofku runtii ma gaarayo ma helayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala jannadiisa heli maayo karaamada Ilaahay subhanahu wa ta'ala heli maayo raali ahaanshaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala heli maayo gargaarka Ilaahay subhanahu wa ta'ala heli maayo ilaa inuu ma garanaysaa kitaabka iyo ma garanaysaa sunnada oo qabsada mooyeen ama mutaabaca la yimaado daahiran wa baatinan kor iyo hoosba aqeedatan wa amala inuu runtii uu labadaba ku dhigo markaas runtii ay badbaadiyo qofku taas wax weeyaan waa cilaajka koobaad oo ah inuu qofku kitaabka iyo sunnada uu markaa ku dhigo talabaad waxa weeyaan al-iltisam bi madhhab salaf ahlu sunna wal jamaa inuu qofku laazimo madhabka ahlu sunna wal jamaa oo aanu ka baydin Allah subhanahu wa ta'ala ummadan waxa uu ku manaystay inuu u soo diray nabi Ilaahi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam نبي محمد عليه السلام وحي وقارسيه رسالة البلاغ المبين قارسين عدبو سو قارسيه حقه حجادي برونتي مقرانسا عالم كودن وكوغي نهجيسي دريقيسي وحا مري او كود النبي صلى الله عليه وسلم صحابته وتابعون صحابه النبي صلى الله عليه وسلم اي التابعينتي وخير القرون اي طريق النبي صلى الله عليه وسلم مركا مري الا يصوب بحدي فتنتي أي أمد أي كرتكتي لكن أهل الحق السلف الصالح وحيرنتي أي باقي أي كن نقدين إن السنة النبي صلى الله عليه وسلم هي كتابك أي مركا هيستان مركا صار لقوم مقعابي بالسلف سلف صار لقوم مقعابي مركا وحيوي وكو يرنتي أمدا خير كوجه الرئي خير كما قرنا سا إن كودجي كتابك هي السنة مركا قاتوي وقوم رنتي أنا قول درسنا هينين قفك الله فريستا قفك الراعة طريقه مرة ما قرنس لقب كارونتي السلف مركا واحد من نقضي مقع أنكو قارهين زمن أنكو قارهين فئة معينة دائفة كلية أنكو قارهين لكن هو محي ومنهج وحويا مرتبط بالمنهج وحوكو عليه أرنكاس رونتي منهج كي هي الطريقة دي سلف كمر قرنسا عقيدة وعملا وقولا انت ما قرنس marka mid kasto dariiqa mara oo qaatay iyaga ma garanaysa wadadoodii mara muxuu noqonayaa waa salafkii runtii ma garanaysa salaf mu noqonaya laakiin fi muayana kuma xidna runtii kuma qaydna marka runtii qofka uu kaga badbaadaya marka uu qaato meetabkii salafka ayuu ma garanaysa kaga badbaadaya inxiraaf in marka uu ku yimaado iyo quluwi marka ma garanaysa wala yaal in la laasimo مذهب كي السلف رحمهم الله تعالى أول الراعه انحرافك هي اللي جبت بادية دواء أيون نقنية وحي انحراف يقولوا يا هذا عينه كايا مركز دواء نقنية وعلى هذا لما الركنية اللي قد وين يوم على كذا يقولوا اللي قد وين هي حد قدب كام قرنا سا بدكوا أي كل عين
وحويا رنتي وكتابك إيه سنة إيه مذهب كالسلف أول اللاسمه طريقته دي مقرنس أول الراعة مقرنس وحلا جبت بعد يا مركها ظواهرته انحرافك إيمانا إيه ابتداع في الدين تمقرنس وحلو سكر ديو لبضع الريموت بلا جبت بعد يا مركز ورنتي هو الدودة كما ضميستها مركها مع مركها اللي هي إن لفافية مذهب كالسلف إيه عقيدته دي إن لفافية رنتي وحي هاين أئمة مقرنسة علمية طريقة رنتي سحدة هيسي كوا عدايا حتى قولك أي أورانيان إيا هذا الكاي أورانيان إنا مقرنسة آنو خلاف سنين كي سلف كي مقرنسة يكوري كي سلف كوري إمام أحمد رحمه الله تعالى أي وحو لي هذه مذاهب أهل العلم تنوى مذاهبتي إيا طريقي أهل العلم قائمرين وأصحاب الأثر هي أهل الحديث كما قرنس كواس أهل السنة المتمسكين كوا مقرنس أهل السنة هي كتابك كل جي عروض مقرنس قلت أنت عليك قبصدي والمعروفين بها إلا يقانه إلا قضينا هي مقرنس على قصة بلابه صحابي النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وعدد كان سوق عليه مركع أولي وتلمام يا رنتي وعليه مد كستأر خلافة أو أيها كبحة دعني أودر أو وحكشة قف مذهب كودا قاطع عبية ومخالف مبتدع ويان وقف خلاف المذهب كودي كبحي وبدعوة مركز جماعة مسلمون تنا مركز كبحي مركز رنتو على كتوسين إسا سيدا مقرنة علماء أدكينيين أو تركيزيين إلا لازمه مذهب كمقرنة سلف كمركز وحرنتي أين ما أنت أركينا إنه فربطي انحرافكم إيا اللي حشوه أرنتي رفض فربطني أي طريقي كلا إحدان وحكوه يجب مركا كوه يجب أهل العلم إن يوعد أيام ضدك سنة إيا مدبك سلفك حضيت هاي إن قراء لغو سمايو حضيت هاي إن لبراء حضيت هاي وسائل كلا أو ضدك اللي توجيهين أيو لغو إرشادين أيو الله عضين أيو أن علاج كصدحات أن تلمام إنه وحوي العلم بحقيقة الإيمان إنه لو أجاده حقيقة إيمان ربعهان إيمانك اللي أجاده هي علاقة هي حريرك ولا اللي هي أعماش ولا اللي هي مركا إنه تاي إنه قرأنا رنتي كتابك إيه السنة إلى أعماش صالحة إيه وناكسن أي تهاي شعبك كم إذا معنى بحيث يا كتابك إيه السنة بقرايا عملك وناكسني إنه يهاي قريب كم إذا إيمانك أما شعبة إيمانك كم إذا إنه يهاي إلهنا سبحانه وتعالى وحليه وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلهي سبحانه وتعالى صلاة دين ما ضيعيه وحاو كتري أعماشي رنتي صلاة دين لقبنا أي إنه كم يتهاي إيمانك أي كم يتهاي ذنوبته إيا معاصي قفك وقاله إنه يتهاي شعبة أم بخصلت كم إذا كفر إيا قال لماذا توحين الله نهاي وحارن كسكاسنا يا قفكو إنه كل مكره قال لما يا إيمان إن لبده رنتي مال أيقود إيمان كرام مقرنس أو خسالك إيمانك إيه خسالك كفرك قفك مقرنس لجه لايو أو قفك مركا ونقنا أيوه مؤمن ومعه شعبة أو أكثر من شعب الكفر إصابة شعب كي قال لماذا حنبارسنا هذا مؤمن ونقنا أيوه والنبي صلى الله عليه وسلم حاول لي هي سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قفك مسلم كذا على وضع كبح دجال كيس الله دجال أنتانا وكفر مركز سأل النبي صلى الله عليه وسلم لي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الذنوب أي كفر وكم عاوي حتى نقفك أن لقى صارين إيمانك أن لقى فين دمانتي والنبي صلى الله عليه وسلم الزاني لا يسني حين يسني وهو مؤمن السارق لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن بمعنى وحوي أن هذا دينتي لقى مصارين قف سنا أوجد أي رنتي قاعدة الأوجادة وإن تساوجتين وقفك يكون كل مكران إيمانك يشعبك مكران خصال الإيمان هي خصال الكفر اللي بدأ يكون كل مكران أي نقول علاج غلو إلا قدويه محايا لي نمك قولاد داهي وحي رنتي وقفك ومرينا إياه
إنه قفك يهي إما إيمان صرف أو كفر صرف يعني لما وحبه دحين بقى إيمان مؤمن خاصة يقال لما وحبه مرحيان دبي تنام قفك مسلم كهاي معصدها كذا علي أي مركا وقال سينية أو ماشى وكسر إياه أو واحد مركا وفهم إياه إيمانك رنتي إنا الله كل مكرين وشعب الكفر يا أما خصال الكفر يا إيمانك إنا نسكو إيمان هينين هذول لكنه قاعد إيمانك يهي قول وعمل واعتقاد إنه يهي السيادة أيو نسخام أيو إنه شعب وليه هي أو قيبة وليه هي ماليه خوارجته أي كل عليه قلوه أيو مركا وكبت بادية علاج كأفراد إنه تلمام إنه وحوي إنه قفك الرمائية متشابه قرآنك كنا عمل فراغ كيس محكم كا السجن تشابه مركا لقى اللي متشابه ولا من نوع مدو حويا وحقيقي oo ilaahay subhanahu wa ta'ala cilmigiisa kaliyoog oo cid kale og ma jirto midna idaafi baa la yiraahdaa waxa uu dadka qaar baa ka jahliyo oo garanaynin qaarna way garanayaan nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu ka digay inuu qofku raaco mutashabiha quraanka kiisa mutashabiha ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam ka digay waxa runtii uu hogaaminaysaa qofka marka dambe inuu quluwi iyo inxiraaf iyo ibtidaa ومركا وكدعه النبي صلى الله عليه وسلم وحكوا إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه هذا ما أركتها كوا راعي متشابهة وحوجاتين يهي كوا إلهي سبحانه وتعالى وما عامل مركا إسكال عليه وحلا جامد بدبال وحي كشر تارنتي مدخل كاس أو أم مداخل كانحراف كهالك كسو لقصو كسو إيمان أيوه إنه قفك وبيرأ ولا يحضه لا بعرفين بلقي بدبادية إنه القرآن كمحكم كيس يكون عمل فله متشابهين ما قرنا يسا ورمى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب سأل الله سبحانه وتعالى وترباوي علاج كشناد إنه مركا إنه تلمامنا وحوي إلا ضبطيه على قضاء أن بحير كود حياة حاكمك إيا محكومك أن بحاكمك إيا رعيديس إلا ضبطيه رنتي محا مركا لو ضبطيه يا رنتي على قدم جهة الحاكم هذا إنه كذا إنه وحل ربها هي إنه حاكمك وكوكعه إلهي سبحانه وتعالى وحي وكواجبيه إنه حقوق دي الرعية يكون هاي وكصوبحه إلهي بنا سبحانه وتعالى كل حساب طمية وحل ربها هي إنه إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيس وكحكمه وأيام وحقفرها بضوام حي وحل لقيته جاي الحكم كي إلهي سبحانه وتعالى قفك وحكله وكحكمه دينته كبحي waxa la gaalaysiinaya marka ninka xaakimka ah diinta laga saaraya waay marka isagu gaaloobay intii raacday waxa leeyahay kuwana gaalka bay raaceen waxa weeyaan arida bil kufri kufrun raali bay ka noqdeen gaalnimo iyaguna waa gaalo waa la israaciyay dabeetana asxaabada sayrafa loo gelinaya marka runtii waxa looga baahan yahay isagu taayta soo dhicin inuu ninkii xaakimka ahaa kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ku xukumo waxaa loo baahan yahay cadaalad uu sameeyo oo jawrka iyo dulmiga uu iska ilaaliyo waxaa loo baahan yahay ummadda runtii inuu markaa uu la tashado cadaalad runtii Ilaahay subhanahu wa ta'ala in badan quraankiisa kaga warramay dulmiga uu leeyahay imgaraansa jawrka uu leeyahay dhibaatada uu leeyahayna iyo wiciidka ku soo aroorayna waa macruuf runta waynu garanayna oo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay ma min amirin 10 ma jirin madax taban noqonaya iyo in ka yarba إلا هديو جرى ما أنت قيامة ولا كينا يا سوى الله بدك معاد قرط لو حري إلا عدل وفرنا أيوه أنبوه هياجي يشوركي يدل ميوسم أي مركز وحلو بها يا رتي الله سبحانه وتعالى إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل مركها وحكى حكم إنسان عدالتكم حكم بالله سبحانه وتعالى وليه وطبق رتي نصين مركها وعدل جواها كم إذا إلا لو حكم كتابك الله سبحانه وتعالى تمام العدل هو تحكيم بالكتاب والسنة عدل قد ما يسكتراني وإلهي سبحانه وتعالى كتاب كيس إيه السنة وأمضى رنتي لو حكمه إنه تشيو وحلي يا لو يحد المياه عندنا آية ترسانة يسو إنه رنتي حولها وبحنا أيو إنه سعد دالة وبحيو ومضى وغيبيو ونرينا ما قرنا ساكميسين أي الله بهاي هاي ضبطك waxa lagu dabdinaya calaaqada u dhaxaysa marka laga eego xaakimka iyo maxkuumiinta
dhinaca maxkuumiinta marka laga eego amba raciyada alwafaa bilbayca waxaa la samayn jiray marka hore bayca dadka laga qaadi jiray baycada imaamka runtii la doorto ninka madaxda la doorto in loo wafeeyo la ilaaliyo waa in la adeeca runtii wixii aan macsi ahayn waa in lagu sabraa wixii dhibaato ah uu la yimaado waa in lagu sabraa waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu ogaa in dulmiga walaadu ay samayn doonaan laga hortegi doono ictidaa iyo xadgudub iyagana ma garanaysaa laakiin nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu leeyahay hala sabro xataa wa in daraba dahrak wa akhada maalak hadduu dhabarka hadduu ku garaaco xoolaha hadduu kaa qaado waayo bixitaankaaga aad ku baxdo dhibaato ka weyn iyo mafsado ka weyn ayaa imanaysa markaas oo nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu leeyahay inaha satakunu bacdi athara waxaa iman doona aniga dabaday door ma garanaysaa in ummaddan ma garanaysaa itaar uu dhaco oo dad wax gaara la siiyo oo cadaalad darra ay timaado iyo arrimo aad diidi doontaan baa iman doona buu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam waa kow waxaa dhahay rasuul allah maxaadna amraysaa arrinkaasi hadduuna soo gaadho maxaadna amraysaa nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu leeyahy tu'adduuna alxaqa aladii calaykum war waxa uu idinku leeyahay xaqa u guta kaa leedihiinna ilaahay weydiisa ilaahay baa ninkan la xisaabtamaya xagga waxaynu ka tilmaamaynaa in runtii qulubiga lagu daweeyo oo loo daweeyo caqadiyan caqiide ahaan in loo daweeyo cilmiyan waxaa loogu daweynaya horta waxaa lagu daweynayaa dalab alcilmi asharci waxaynu soo aragnay asbaabta keentay inay ka mid tahay jahliga qofka kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka jahli kaga sugan laanna waxa weeye inta ugu faraha badani asbaabta ugu faraha badan qulubiga waxa uu noqonaysaa aljahlu biddiin waa tii la tilmaamaya runtii khawaarij qilatu lfahm ay ku dhacday inaanay kitaabka ilaahay baanay fahansanayn oo waa tii maadagoor ala sheega laba nin oo magaranaysa yidhoo kitaabka ma akhrida qur-aanka ma akhrida inama nasiyatun fi lkufr ilaahay ribadu kaga warramaya markaasuu yidhi wax ma ilowdaa isuu yidhi haa adna wax ma ilowdaa haa labadeedin wax ma ilowdaa haa laba gaal baynu nahay markaa waxaa runtii ay ku tusinaysaa markaa dee jahliga iyo fahm la-aanta markaa wax walba inay dadka ay gaalaysiinayaan markaa inuu jahlu yahay nabiguna sala allahu alayh wasalam wuxuu leeyahy man yuriid allahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin xadiiska saxiixayn ku sugan waxaa leeyahy nebigu qofka ilaahay khayr la doono diinta ayuu markaa fahansiiya ibn lqayim raximah allahu tacaala waxa uu leeyahy in alcabda low carafa kula shay addoonku hadduu shay walba uu garto walam yacrif rabbah oonu ilaahay garanahaynin fakaannahu lam yacrif shay-a wuxuu ka dhigan yahay qof aan waxba garanahaynin oo jaahila haddaanu ilaahay subxana wa tacala aanu garanahaynin ibnu taymiya raximah allahu tacaala waxa uu leeyahy waalcilmu lmamduux cilmiga la ammaanay aladi dalla calayhi alkitaabu wasunna huwa alcilm aladi waratahu alambiyaa waa cilmigii ambiyadu ay dhaxalsiiyeen ee laga dhaxlay weeye qaala allahu wa qaala rasuuluhu weeye cilmigu markaa fataawihiisaas runtii ay kuseelaysa majalada 11aad safxadda 396 marka waxa uu tilmaamayaa cilmiga dhabta ahi inuu yahay cilmu lkitaab wa sunna waxaa markaa runtii loo baahan yahay taasi ay keensanaysaa in dadka loo diyaariyo duruqii cilmiga markaa sharciga ah ay ku baran lahaayeen hadday tahay icdaadu ducaad hadday tahay iyo hadday tahay runtii meelo kaloo loo sameeyaba waxaa ka mid a waxyaalaha lagu daweynayo cilmiyan lagu daweynayo quluwigaas dabd almanhaj manhaj alistidlaal walistinbaad in la dabdiyo manhajka qofku runtii wax ku daliishanayo iyo qaabka nusuusta u istinbaadayo culimadna runtii way caddeeyeen manhajkaas lama daliishanayo runtii waxaan daliil aan ahayn kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaci iyo qiyaaska waxaan intaa ahayn lama daliishanayo culimadu runtii waxay inoo caddeeyeen qawaacidka loo noqonayo markuu qofku doonayo masale inuu istidlaal uu ku sameeyo daliishado waxaa ka mid a qaababka loo daweynaayo ee cilmiyan loogu daweynaayo manhajka in la dabdiyo manhaj fahm alalfaad fahamka ma garanaysa dariiqada lagu fahmaayo alfaadda nusuusta ah amba alfaadda sharciga ah waxaana runtii laga maarmaana macaanida iyo mabaani alalfaad dhismayaasha alfaadda iyo macaanidooda in markaa la garto
إلا قرطه مقاصد الشريعة الإسلامية أي لا هاي إلا أقول نقول أيوه فهم كاللفظ وقفك فهم أيوه وكم هاي اللغة العربية إلهي سبحانه وتعالى كتابك يسند كسد شيء يقفك برك مقصود كشارع إلهي سبحانه وتعالى وكل هي ألفاظه إن لا فهمه أو لا قرطه مثلا نوع سواق هذا تصالح النبي صلى الله عليه وسلم حديث سواق ليني سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قفك مسلم كود عيدا وضع كبح دقال كيس لا دقال انتانا وقال لمو وعلى جاي بقفك هداني وحبي فهسنين إنه لا أيه قتالك قفك مسلم كا ولا دقال ما إنه دينتك بحي أو قالوا بي أو من لدي دبده وكي هاي أركض رنتي عن كماها واحد هذا كفر دون كفر بلده وإلهي سبحانه وتعالى وحين نوت المامي لباك وحوض مسلمين وإسلاميين هذا إلهي سبحانه وتعالى وقتل المامي ضد مؤمنين لهم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا بالله سبحانه وتعالى لكن هذا وحبي يقول حورنا يا الله قال لهم وضد قال انت هذا دين تبغى كبح قال باطاي أن وحكم إذا علاج علمي غير أنت قلوب اللي قد وين أيوه التلقي عن العلماء علماء وحلقات ورعاية حقوقهم حق يقول ليهن لا إله إلا الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا ولم يعرف لعالمنا حقه نقام مدها كايغا أن كوين احترام كايغا يرى أن نحريصا عالم كايغا حقي سآن قرن علماء رنتي وان وحلاقا قاتو علمك لقلا كل ما يغا oo talaq lagu sameeyo culimadu shariicada islaamka marka laga hadlaayo waxay leeyihiin mansilo iyo darajo sareysa oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu dhigay ilaahay amray ma garanaysa in la adeeco oo iyaga ma garanaysa wax la weydiiyo oo leeyahay fasalu ahli dhikri in kuntum la ta'lamun hadaydan waxba garanahaynin culimada marka wax weydiiya ay ishkaal oo dhaca iyo mas'ala kasta oo kugu timaada maxaa loo baahan yahay hadaad garanahaynin inaad marka aad u celiso culimada inaad marka aad u celiso oo iyaga aad weydiiso ayaa loo baahan yahay asbaabta runtii ay ku magaranaysa inxiraafeen khawaarijtu ama runtii maanta dad badan ay ku leexanayaan waa iyagoon ixtiraamkii runtii culimada loo lahaa aan siinahaynin waa iyaga oon culimada aan waxba ka qaadanahaynin waa iyagoo culimada ku tilmaamaya xoranayaan culama al-hayd wa nifaas oo aad magaranaysa haydkii nifaas ka sheekeeyaan maxay garanayaan haya maxaa kaas garanaya waa qaacada weey waa jaahil weey waxba laga qaadan maayo tanfiir runtii dadka marka uu ka dadanayo taas waxay runtii inaad culimada aad ku xidhanto wax weydiiso ku kalsoonaato waxay keenaysaa in la runtii magaranaysa qofku ka badbaado asbaabta marka khuluuga ee in fara badan maanta ay ku dhacay marka waxa loo baahan yahay runtii in loo leexdo ahlul cilm علماء أهل السنة والجماعة لما قالوا برنتي قلوبه كل سمينيا علماء أوام حي قالوا وحويان وعليه ويجالسينيا هاي وما حي قال بوي الحكومة العلمانية أيها الصفدية دين تبوا كبحي ومن ثم استحلال دماء العلماء بكسب حيسة دي جود الحلا وشذا قال أنا وعكو سمينيسا ولا بقولوا ويرنتي لفظ بدعي يبدعونهم ويضللونهم ويجهلونهم معاك كده جيان وحيلهم مبتدعة وضد مبتدعة وضد مقران صد الله له اللنصن وضد جهالة ومقران صد لبضة قلباء وحوي رنتي قولنا وأهل التبديع والتفسيق والتضليل وضد كورنتي وحوي حاجة زي مقران قولنا وحوي وأهل التكفير واستحلال الدماء لبضة هو اللي بقولوه وحن لبضة اللي جابت بهذه العلماء اللي وحنا هذا علمك لقى قاطه وحلو ويديه لا احترامه لا قدم بيرنتي علماء وحيويهن دولك سيدي حدقوها أيويهن مقرنا ساعة علماء دولك وحيويسي حدقوا دولك ويهن ودي حدق الوين مكد باي منايا لهانوني مايو ورنتي ولا لوميا علماء النوع عصوك لويه وحكم ده حيالها كلا رنتي علميا لو بهاي الدوينة هي العلم بمقاصد الشريعة مقاصد الشريعة إنه قفكو إنه مقاصد الشريعة إنه قفكو برته إلا برته
مقاصد الشريعة الله إلى عليا الله كلا قرطو درجة أي كلا ليهين مصالح ذا إيه مفاسده ومانع كم إذا وحيال الدواء والديد كم إذا وحيالها الديد أي قلوق أي انحراف نرعه وهي هذا رنتي شاهل وقف جاهل وكقصنا هذا قفكه مقاصد الشريعة الإسلامية أما مقصد كي الشارع لها إلهي سبحانه وتعالى وأولمية وأنا تقول عن رنتي ذاتك المتشددين تعال قلوب ولا يمين يقول رنتي أن قرنا هينين دين الإسلام كانت هاي مقرنا دين اليسر رفع الحرج والتيسير المشقة تجلب التيسير قواعد الشريعة أن قرنا هينين هي مقاصد الشريعة أي رنتي مركز يكون عيان مركز صيلو ميان وحيانا كنت لابد وين كرا علميا لو قد وين يقولوا ولا وحوي العلم بالتاريخ إنه وقف رنتي التاريخ ذا وآخره فرقي هرا لمي تاريخ ذا وآخره قديما وحديثا هرتا يدا بيسبه وآخره ما حصل بحايا تذكر هالكي أي كل إحدان إيه سببها أي كل من إيه الانحراف كان يقولوا يعني هالكو كيمي هالكو كيمي أي مركا وقرنا إياه تبى تنوحها رنتي waxaa ka bayrayaa halkii ay ka leexdeen waxaa ka bayrayaa dariiqii ay mareen waxaa garanayaa qowlka khawaarijtu iyo halka soo bilaabmay waxaa garanayaa mu'tasiladii ay soo luntay wuxuu garanayaa al-qadariyya wal murji'a iyo dhamaan al-firqa daalla sida uu lumeen iyo wadadoodii buu garanaya markaas iska ilaalinaya wuxuu ogaanayaa culamaa ahlu sunna wal jamaa sida u ridiyeen iyo sida xaq ay u cadeeyeen ayuu markaa garanayaa waxaan leenahay markaa taariikhdaas runtii qofku si fiican u akhriyo waliba gaar ahaan al-firqa waxay noqonaysaa waa dariiq kamid ah duruqda lagu daweynayo al-qulub fi ad-din wal-inhiraf labada lagu daweynayo waxaan runtii ku soo khatimaynaa ma wada gaarsiinaa runtii sibanka dhacay waxaan ku soo khatimaynaa inuu qofku ogaado مراتب تدك سيد الشيخ قرنا إنه رية المامي أنا تدك إسكملوا ذا تاجنين مراتب الناس معايا لي تدك معاك منهم المؤمن ومنهم الفاسق ومنهم الكافر ومنهم المنافق إسكو درجة معها وأيكل دويهن إن أتسنتقف مسلمة أو معسكر عاي إيه ننكروا إلهي سبحانه وتعالى كقالوا بي ترونتي مقراص وآد بوكل فكتي وجوري يظلم وير قف الله سبحانه وتعالى رميسن أو معسكر عاي إيه ننكره ترونتي وحوي هدي هذا كلا جرن مراتب تهدك محاكر الله إن هذاك رونتي عضو السنتو وقفك مسلم كها دين تعد كسرته أود جالسيسو كل ده جالسين محاي مريا إذا ديجي سحلاشته سوى مساج كتير ديل سوى كبحسن ديل سوى تكني ديل سوى صومن ديل ويا وحوي مرقول بواحد هاي نقال ديل يا مركز وأنا خضر رنتي مقراص إذا المراتب تهد كلا جنوي إذا مركز البدع رنتي وحويان وحي كل سين البدع بين الجهل والظلم كل مين لبضع سي كل مين يا ظلم لا يمنعيا يا اعتداء يا جهل سيدي مقراص وتلمامي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وحكمل وحيلها اللي قد وين أيوه إن مناهج رنتي التعليمي هي السياسة وحبرشة لا توسيو لا إلاليو نشأة يدا ليردا مقرنا سمين سكيلوها قاتشيو معلن كأوديك أيه لا إلاليو لا دورته مواصفات كيسة يشرودي صلى الله عليه إن إنتصين إن شاء الله تعالى أي نكسو كوبنا وحنوها لنا علاج كي تربوي جاها يكي اجتماعي جاها سبن كأيان نسينا إنه سامحها هينين إلهي سبحانه وتعالى وحين ويدي سنينا إنه حقا مقرنا ساينو وسقه إنه طريقة حقا إنه مريو إنه إنه غير عليه طريقة